meherkii iyo farxaddii mar qura isku beddelay geerida. waa qiso naxdin, murugo iyo warkutaalo leh oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Faadumo Cismaan Aadan Dheeg, alla naxariistii jannaha ka waraabiye, waxay saaka kulansatay meherkeedii iyo geerideedii. sida la sheegay hal saac kadib waxaa loo balansanaa meherkeeda in uu ka dhaco magaalada Hargeysa, balse xaqii Rabbi ayaa u soo hormaray, waa ayna geeriyootay. Faadumo allaha u naxariistay waxaa ku soo booday xanuunka faaliga, taas oo keentay in isla markiiba loola cararo dhakhtarka Hargeysa Neurology. balse xanuunka faaliga ah ee ku soo booday Faadumo ma uusan ahayn kii ay ka badbaadi lahayd. waxa uu noqday mid ay ku baxday ay nafteedii ku weysay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Faadumo Cismaan maanta oo ay taariikhdu ku astaysanayd 15 bisha koowaad 2022 ahna maalin Sabtiya ayuu meherkeedu ka dhacayay magaalada Hargeysa, oo waayadanba loo diyaar garoobayay xafladda meherkeeda. waxayna Faadumo ahayd mid u diyaarsan, aadna ugu faraxsan meherkeeda, balse nasiib wanaag safar kalayna oo aynan ogeyn misna qorshaheeda aanan ugu jirin kuna xisaabtamaynin ayaa soo galay, kaasoo ahaa mid aan ka soo noqosho lahayn. waana safarka dhammaanteen bayna wada sugaya ee geerida xaqa ah, oo wayba geeriyootay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. walaasheen runtii waa tusaale ku cimri qaadasho leh. adduunyadu macno weyn oo lagu sii dadaalo ma leh. adigoo meel niyadda ku haya, hawlina ay qabyo kaa tahay, unbaa la iska dhex qabanaya. waxayna geeridan walaasheen Faadumo ku timid noqotay arooskeedii mar qurah geerida isku beddelay. maantuu arooskeedu dhacayay, siiba meherkeedu, ee isla maantana waa ay geeriyootay. qabri ayayna gashay, wayna naga hoosaysaa. allow u naxariiso walaasheen. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. sidoo kale tani waa cibaaro mudan in wax lagu qaato, waana daacdo dunida naadir ku ah oo aan badiba la arag. waxaa dhowr bilood ka hor sidan oo kale ka dhacday Jigjiga, caruuskii meherkiisa markii uu soo idlaaday kadibna geeriyooday. naftu intaasay bini'aadanku u jirtaa. allahay naga yeelo dhammaanteenba kuwii uu mowdku ula kulmo iyagoo khayr gacmaha kula jira. aamiin. fadlan walaal sii sheergaray muuqaalkan naxdinta leh si ay ugu cimri qaataan walaalaheena kale. like-na saar muuqaalka. mahadsanid.